ciridkaaga oo booskiisa ka durqo waa cillad bulshada Soomaaliyeed ku badan waxaana caafimaad ahaan loo yaqaanaa gum recession. Muuqaalkan ayaan kugu sharxi doonaa waxyaabaha sababa iyo sida ugu fudud ee iskaga daweey kartidba. balse intuusan muuqaalka bilaabanin waxaan kaa codsanayaa in aad booqatid bogeyga Facebook sidoo kaleeto aad like saartid, sidoo kaleeto inaad tagtid qaybta saddexda dhibcood kadibna aad kasii xulatid qaybta ay ku qoran tahay following, kadibna aad kasii xulatid qaybta ay ku qoran tahay see first. waxaa noqon doontaa qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda. run ahaantii waxaa laga yaabaa wax ka yar 1 daqiiqo inay kugu qaadato, balse xaggayga ay ka tahay wax weyn. fadlan waxaan kaa codsan doonaa inaad muuqaalkan intuusan bilaabanin ii tixgeli doontid codsigaas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواء دمان صاحبيان magacaygu waa Dr. CK waxaan ahay dhakhtar dentist muuqaalkan waxaan jeclaystay inaan kula wadaago macluumaad ku saabsan inuu ciridkaaga hoos u durqo ama xaaladda loo yaqaan gum recession. run ahaantii xaaladda noocan waxyaabo badan ayaa sababi karo, balse qiyaas ahaan 30% waxaa sababa dhaxal oo haddii qof ka mid ah qoyskaaga hore u qabay waxaa laga yaabaa in dhaxal ahaan ay kugu soo gudubto xaaladda noocan balse waxyaabo kale oo ka badan ayaa sababi karo. intaan u gudbin waxyaabaha sababo waxaa rabaa inaan kuu sheego haddii aad isku aragtid inuu ciridkaaga hoos u durqay waxaa muhiim inaad si degdeg u tagtid dhakhtar ilkood ama wax loo yaqaan dentist, sababtoo xaaladda noocan waa halis haddii aad iska daweey waayo oo haddii aad iska daweey wayso waxaa laga yaabaa inay kugu sababto ilka la'aan. haddii aad iska daweey waysid xaaladda loo yaqaan gum recession waxay kugu sababi kartaa in gabi ahaanba uu iligaaga u soo dhaco. waxaan u gudbi doonaa qaybta xigta oo maxaa sababo ama maxaa keeno wax loo yaqaan gum recession oo inuu ciridkaaga hoos u durqo. waxyaabaha sabab way badan yihiin. waxaa ugu horeeya number 1 wax loo yaqaan gum diseases oo caabuqyada ama cudurrada ku dhaca ciridka. cudurrada ku dhaca ciridka way badan yihiin. waxaa ugu horeeya ciridka loo yaqaan yiridka ama waxaa ugu caansan xanuunka yiridka. xanuunka yiridka afka caafimaadka waxaa loo yaqaanaa gingivitis. muuqaal hore ayaan ku sharxay waa soo daawan kartaa oo bogeyga iyo Facebook page-kayga komakeeda YouTube page-kayga waa ka heli kartaa. sidoo kaleeto waxyaabaha kale ee sababi kara xaaladda noocan waxaa ka mid number 2 wax loo yaqaano trauma toothbrush oo inuu dhaawac soo gaarsiiyo ciridkaaga cadayga aad ku cadaysanaysid. tusaale ahaan haddii aad ku cadaysatid burushka ilkahaaga oo aad si xoogan u cadaysatid waxaa laga yaabaa in burushkaas uu dhaawac soo gaarsiiyo ciridkaaga. marka waa inaad si fudud u cadaysatid si uu kugu sababin xaaladda noocan sidoo kaleeto waxyaabaha kale ee sababi kara xaaladda noocan waxaa ka mid number 3 smoking and tobacco oo inaad isticmaashid sigaarka iyo khaadka. run ahaantii labadan waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu badan ee sababa xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha. marka haddii aad jeceshahay inaad hagaajisid ciridkaaga iyo ilkahaaga waa inaad ka fogaatid sigaarka iyo khaadka. sidoo kaleeto waxyaabaha kale sababi kara waxaa ka mid number 4 wax loo yaqaan plaque oo dhagaxaanta ama huurada ku sameysma inta u dhaxayso ilkaha iyo ciridka. marka haddii xaaladda noocan isku aragtid waa inaad si degdeg ilkahaada u nadiifisid, haddii kaleeto waxay kugu sababi kartaa inuu ciridkaaga hoos u durqo. waxaan u gudbi doonaa qaybta xigta oo stageska ama heerarka uu soo maro xanuunkan. xanuunkan gum recession-ka wuxuu soo maraa ama waxa loo kala qaybiyaa 4 heer oo kala duwan. heerka koowaad waxaa loo yaqaan stage 1 waa in uu ciridkaaga in yar uu hoos u durqaa waana laga gaari karaa waana laga hortagi karaa. heerka labaad waxaa loo yaqaan stage 2 waa in uu ciridkaaga si zaa'id hoos ugu durqo. run ahaantii heerka markuu gaaro iligaaga halis ayuu ugu jiraa inuu soo dhaco. heerka saddexaad wuxuu saameyn doonaa ciridka ilkahaaga kale oo waxaa laga yaabaa dhammaan ciridkaaga inuu hoos u soo durqo. sidoo kaleeto stage 4 ama heerka afaraad markii soo gaarto xaaladan waa xaalad aan waxba laga qaban karin oo aad halis u oo waa in dhammaan ciridkaaga uu hoos u durqo. xaaladda noocan markaa ku sugan tahay waxaa halis ugu jirtaa in dhammaan ilkahaaga ay soo wada daataan. marka waxaa muhiim inaad ka hortagtid xaaladda noocan markuu soo marayo heerka koowaad iyo heerka labaad. waxaan u gudbi doonaa qaybta ugu muhiimsan muuqaalka oo sidee loo daaweeyaa ciridka hoos u durqay ama sidee loo daaweeyaa ciridka burburay. run ahaantii xaaladda noocan marka ugu horeysa isku aragtid waxaa muhiim in aad booqatid dhakhtar ilkood ama wax loo yaqaan dentist. dhakhtarka ilkaha markuu qiimeeyo ilkahaaga iyo ciridkaaga
wuxuu kuu sameyn doonaa nooc ka mid ah nadiifinta ilkaha ee loo yaqaano scaling. run ahaantii nadiifintan ilkaha waxaa loogu talagalay in dhagaxaanta ama huurada ilkaha ku sameysmo looga saaro meesha. si aad shaashada ugu jeedidbo habka loo yaqaano scalinga qaab noocan ayaa loo sameeyaa oo waxaa la isticmaalaa mashiinka loo yaqaano ultrasonic scaler. sidoo kaleeto waxaad ku daweyn kartaa ciridkaaga hoos u durqay qalliinka loo yaqaano gingival graft. si aad shaashada ugu jeedidbo qalliinka loo yaqaano gingival graft qaab noocan ayaa loo sameeyaa oo ciridkaaga ayaa waxaa laga soo gooyaa qayb kaleeto. qalliinkan waxaa loogu talagalay in ciridkaaga meel kale laga soo gooyo kadibna lagu kabo inta u dhaxayso ilkahaaga iyo ciridkaaga. marka muddo kadibna way bogsoo doontaa meeshaas oo ciridkaaga ayaa loogu tali doonaa meesha. kadibna ciridkaaga iyo ilkahaaga waxay kusoo noqon doonaan sidii hore oo qurux ayay ku noqon doonaan. run ahaantii qalliinkan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan ama qaabka ugu saxsan ee loogu daaweeyo ciridka hoos u durqay. waxaan soo gaarnay gabagabadii muuqaalka. waxaan rajeynayaa hadda inaad fahantay wax loo yaqaano gingival recession ama ciridkaaga hoos u durqay, waxyaabaha sababa iyo sida loo daweeyo iyo heerarka guud uu soo marabo. waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto, sidoo kale aad la wadaagtid saaxiibadada si ay ayagana ugu faa'iidaystaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.